kulanti wanaagsan daawadayaal waa tartankii halabuurka ganacsiga ee jaamacadaha Muqdisho shantii sano ee la soo dhaafay wuxuu si xiriir uga dhacay Soomaaliland waana markii ugu horeysay uu ka dhacayo magaalada Muqdisho sanadkan oo uu Muqdisho ka dhacayo waxa ku tartamaya 10 jaamacadood oo caasimadda ku yaala 12 mashruuc oo laga soo dhexulay dhowr iyo 30 mashruuc ayaa lagu tartansiinayaa fikradahooda ganacsi bangiga caalamiga ah ee Premier Bank ayaana maalgelinaya oo ku bixinaya lacag dhan $21,000 waxaa la abaalmarinayaa saddexda qof ee ugu horeysay ee ku soo kala baxa kaalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad go'aanka guddiga kadib. barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga xalqadiisa lixaad ee ugu dambeysay waxaa ku tartamaya qaab wanaag Beber Bags Manufacturing Company iyo sidoo kale Aran Farm. labada mashruuc labada arday ee kala metelaya waxay ka kala socdaan jaamacadaha SIU iyo jaamacadda ummadda ee Muqdisho. barnaamijkan waxaa maalgelinaya bangiga caalamiga ee Premier Bank waxaana marka la eego hal abuurkiisa iskale Ustaad Mubarak ku soo dhawaada xalqada lixaad. guddiga barnaamijka Professor Mubarak Ibrahim R waa hal abuuraha ayaa aasaasaha barnaamijkan tartanka hal abuurka ganacsiga sidoo kale waa gudoomiyaha jaamacadda Badar wuxuu ku guuleystay in barnaamijkan uu qabsoomo 5 sano oo xiriir ah isla markaana sanadkan markii ugu horeysay uu ka dhacayo magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Biixi waa khabiir iyo la taliye dhanka tiknoolajiyadda ah waa agaasimaha guud ee shabakadda cilmi baarista iyo waxbarashada Somaliland wuxuu 10kii sano ee la soo dhaafay hal abuuray ganacsiyo ay badankoodu guuleysteen. Cabdullaahi waxa uu si gaar ah ugu fogaan yahay tiknoolajiyadda waxbarashada iyo kubcinta dhaqaalaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Professor Cabdirasaaq Xaashi waa khabiir iyo rugcadaa dhanka waxbarashada ah oo ku dhawaad nus qarni uu ka shaqeynayay waxbarashada Soomaaliya wuxuuna shahaado dhanka waxbarashada sare ka qaatay jaamacadda Harvard. Professor Cabdirasaaq wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Jazeera burburkii ka horna wuxuu bare ka ahaa kulliyadda waxbarashada la furay ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Professor Xaashi waa tababare waana aasaasihii iyo maamulaha xarunta tababarka Baka sidoo kale waa hal abuure iskiis u shaqeysto oo ganacsiga ka haysta Master of Business Administration. ganacsade Axmed Cali Suldaan waa hal abuure ganacsiga ku soo dhex jiray muddo rubuc qarni ka badan wuxuu aasaasay shirkado iyo mashaariic badan oo guuleystay oo ka sameeyay dhanka hantida maguurtada ah dhismaha saadka daawada iyo adeegyada maaliyadda. Suldaan waa agaasimaha guud ee Farmason oo ah shirkad soo dhoofisa cuntada iyo dawooyinka. Suldaan hadda waxa uu musharax u yahay inuu qaato PhD waana bare hal abuurka ganacsiga ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka. markan waxaan u yeerayaa tiimka lamarka 12 nasiib ku yeeshay tartamayaasha ah waxay ka socdaan jaamacadda SIU magaca ay ku tartamayaan oo magaca la yiraahdo qaab wanaag Bags ama Beber Bags Manufacturing Company soo dhawaada qofka idin jeedinayo. ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Cali Cumar waxaan ka tirsanahay ardayda jaamacadda SIU Somali International University. haye barnaamijkan maxaad kala kulantay inta daawanaysay maxaa kaaga baxay go'aano ma jirta aad gaartay inta daawanaysa adigoo markii hore wax ugu soo tala galay magacaaga si kala ula baxay waxyaabo ka dhex guuxay marka daawatay kadib go'aankaaga iska bedelay ma jiraan? ma sha Allah horta barnaamijkan labadii sano u dambeeyay waa social media waa ka daawanayay labada sano social media ka daawanayay waa ku haminay mar uun inaan ka qayb galo ilaahay idankiis haddaan jaamacadeedu dadka ku metelayaan maarata dadka ugu horeey ku jira marka aadan ugu faraxsanahay insha Allah inaan guuleystaan rajeynaa tan guuleysa waa inay walaalihi ay guuleystay. waa mahadsan tahay waxa ku bilaabanaa 3 daqiiqo dadka la wadaag waxtarka ah la warka. bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa projectkan ama mashruucan aan anagu ku tartami doono magaciisa waxa la yiraahdaa qaab wanaag Beber Bag Manufacturing Company waa company ama industry soo saari doona waxa loo yaqaan Beber Bags. haddii aad Beber Bags yani ma ahan u fahmayseen oo halka ka muuqdo injineerka waxaan jeclahay meesha u dambeysay inuu geeyo marka waxaan soo saari doonaa waxa loo yaqaan Beber Bagska ama xaashiyada macaamiisha si ay bedel ugu noqdaan booskii loo isticmaali jiray waxa loo yaqaan bacaha ama plastic loo yaqaan. sidaan ogsoonahay bacuhu deegaanka waxay ku hayaan dhibaatooyin kala duwan maanta haddii aad tagto magaalada Muqdisho aad marto luuq kasta luuq aad tagto ama jid kasta oo aad marto waxa yaala qashinkaas yaala luuqa aad marayso ama jidka aad marayso inta ugu badan waxa waa baco waay marka si bacihii bedel loogu helo ayaan waxaan hal abuurnay inaanu soo saarno waxa loo yaqaan Beber Bags marka inaanu ku halka hal abuurno aan soo saarno macnaha bedel aan uga dhigno kuwii yani hore loo isticmaali jiray yani si aanu macnaha customer-keena u qancino ama customer-keena aan ka dhigno kuwa attractive waxaa jira waxyaabo aan ugu talagalnay si gaar ah customer-ka inaanu maaragtay ugu tixgelino waxyaabaas waxa ugu horeeya customer kasta soo dalba doona waxaan ugu sameyn doonaa shape uu asagu u baahan yahay yani qaabku asagu yiraahdo ha la iga dhigo sidoo kale waxaan ugu sameyn doonaa design-ka asagu codsada in loogu sameeyo
sidoo kale waxaan ugu samayn doonaa size-ka asaga oo codsaday in loogu sameeyo hadduu yahay wholesaler iyo hadduu yahay retailer intaba yacni size walba size-ka dalbadan loogu samayn doona iyo weliba design-ka oo maanta haddii Premier Bank naga soo dalbato ay tiraa waxaan ka rabnaa Premier Bank inaan noo soo samaysaan inaan ugu buufino loogadiina ugu dhajino yacni magaceedina ugu qorno annagoo kalarka u raacsiinayna reasons waxaa jira in lagu dhaliyay markii aynu yacni barnaamijkan hal abuureynay reasonska waxaa ugu horeeya in Premier Banks la helo oo dadku bixii inta ka guuraan Premier Banks ay u guuraan waa eco friendly waxa loo yaqaano waa oo deegaankii la qabsan karta deegaankii la jaan qaadi karta sidoo kale waxaa jira in la iska ilaaliyo yacni dhibaatooyinkii bicuhu ay deegaanka ku hayeen in laga warqabo la iska ilaaliyo waa reasonka labaad reasonka saddexaad ee inuu kalafay barnaamijkan inaan hal abuurno waxa waaye Soomaaliya markii la fiiriyo gobolada Soomaaliya qaybo kamid ah waxaa jira aan laga ogolayn bacaha in laga isticmaalo geeska Afrika haddii aan fiirino waxaa jira wadamo aan bacaha laga isticmaali karin si marka annaga ay suuq furan noogu noqoto ayagiina chance ay ugu helaan bicii booska ay ka isticmaali jireen in ay bedel u helaan ayaan u soo hal abuurnay waxyaabaha aan soo saari doono ama waxaa ka mid ah shoppingka yacni kuwa lagu qaato kuwa eventiska loo isticmaalo kuwa gooni ay jaamacaduhu u isticmaalaan soo dalbadaan magaalada aad u baarteen ma ugu baartiin ugu midinka دكتور آدم ما سنتا بروفيسور أنا ومركن برنامج كان هلا أبوري إنه واحد ترى ماركت ريسيرش عن سمعنا بايبر باجس كان أنا صار صار الدونه عد هراء واستعمارته وصار صار كرتي ولا رمانت بايبر باجس صار صار تمجرت سماه ضد واحد ترى بنانك كسر ضعف صدا ما أنت هديت هم على يوبها تاني بايبر باجس أي استعمار أي قدر أيجنا واحد سمعنا بنانك يقدران بنانك مركي يقدران لوجدي تام عدا وحي كلر كي تام عدا يرتلقوا صوب فيها كدي بالسود وفيها جودها لك أنا مركا ما jirto Soomaaliya cid maanta Paper Bag soo saarta ma jirto idinka marka aad keenaysan Paper Bag Paper Bag kan aan soo saarayno soo gadaysan waxa jira waa ku bilaabay waxa jira mashiin aan isticmaali doono markaan soo saarayno laba mashiin ugu muhiimsan markaan Paper Bag kan soo saarayno waxay Paper Bag ka samaysan yihiin gooniyan kaaga dhigi doona labadaas mashiin aan ku soo saari doono laba nooc kale yihiin mashiin waxa la yiraahdaa automatic machine oo waa mashiin la isku daraayo wixii Paper Bag kan ay ka koobneed Paper Bag kan waxay ka kooban tahay warqad yar oo fidsan oo adag oo la yiraahdo paper roll iyo macnaha gam oo yaani ayada isku dhajinaa waxyaabo isku adkeenayo warqadaas aad qaado midda hore wax laga sameeynayo inta laga keenay warqada wax laga sameeynayo idinka sameeynayo ma warqada wala soo dhoofina gudaha xataa lagu gadaa sama waa la helaa gudaha lagu gadaa inta sarraftaas dadka aad targetka idin ah jawa targetka samarka yaani targetka nooca bulshadii ummadii waxyaalaha bacda isticmaali jirtay hooyooyinkii adeeganayay waxaas aquma lama waxaan aad ma sida professor marka horeysa horta macnaha idin ah hadafka ah taanaad ida hadda bac meesha wali bacdina waa soconay warqadahana waa noo imaanayaan meelaha isto ladan iyo baa la geynaya aad ma sida professor marka horeysa horta Paper Bag aan hadda anagu aynu soo saareen oo hadafkeena inaan soo saarno cid kasta way u baahantahay maamada caanaha geedisa way u baahantahay tusaalaan ku siinay haddii maanta maamadu koomba caana inta bac ku xirto ay qof bac gurad waxa laga yaabaa dhaxdiisa mar inay ka go'aan marka waa marka koobaad cid kasta way u baahantahay target kasta marka maya kana lagu ridaa meeshii bac lagu ridaa target kasta markaana waxa ugu weyn yaani moolalka magaalada Muqdisho ku yaal waxa ugu horeeya Hayat Mall ugu horeeya Midnimo Mall iyo inta la midka sidoo kale waxa jira supermarket أنا أمرك الاستعمال بعد لو حرا بعد كده لو سي دحري ذا ماذا معناه بعد كل الاستعمال لا ماشي بعمل له استعمال لها صفة ماشي بعمل له استعمال لها تلقى استعمالها أنا ما هم بعد عنها اللي بيشوف أنا كمان ماشي لقى استعمال لها بعمل له تلقى استعمالها بسم الله أرتا Paper Bags يا مبيعها عادي حتى سوق في عنا جرا هذا dadkii waxay wada barteen supermarket inay ka adeegtaan supermarket marka tagtana waxa laga yaabaa 3-4 bac kaliya inay ku siiyaan maalintan waxa laga yaabaa in 3,000 oo qof ay ka adeegto kulli marka isku darxtaa ma just one supermarket hay'adan kaliya marka demand karto waa jira expression waxay tahay why uu qof u dooranaya inuu isticmaalo Paper Bag-gan iyadoo bacdina la helay ana wax ku kalifiyo ma jiraan dadkoo dhan ma yaani ma wada qabaan fikirka in environment loo roonaaday iyo wixii la midka ah simplicity-ga salahan markay noqoto in alaab la qaado wadaad adeeganayso babac sideelaad isticmaali lahayd mise kartoonkaas aad wax ku qaadan lahayd tan kale jawaab su'aashaada
horta sanogna baxuu huge wax weyn ma qaadi karaan waa ka diiqayaan design ahaanna way ka qurux badanta markii loo fiiriyo bacda adoo magaalada iska dhex jooga ayaa hawshaadii waxay siita iska siita laakiin marka bac sidato automatically waxay siita horaaba laga qiyaasi karaa marka bacdi meeshii marka laga saaro baagajka waxay sahlayaan qofku inuu maanta dhan soo magaalada jooga ama meesha uu rabaada wuxuu rabo uu meesha ku sita aan laga dareemi karin marka xagga attractive xagga designing iyo xagga huge markii la qaada waxa sahlan baagiska kana qurux badan lagaana arkin waxa sideed idinka option kan kale ee paper bag sababta oo keenay maxay tahay environment ka dartiis yani way bacwa keeni kartaa Soomaa bacda laftarkeeda ka raqiisna keeni kartaa inta uu talagashaa paper bag maxaa u doortay sababta aad u mahadsan su'aasha horena waa daba dhigi rabaa marka hore waxaad ka dhawaajisay yani supermarketka marka tagto dhowr xaba hal mar lagu siinayo waxa looga baqay paper bagiska bacda looga doorbido waxa waaye paper bagiska banaanka laga soo dhoofiya cost badan ay galay halkii kartoon magaalada Muqdisho maanta waxa laga $35 annaga marka aynu soo saareen halka kartoon waxaan ku saari doonaa qiimo dhan $14 iyo bar marka qofku meeshu $35 ka gadan lahaa waxa uu haboon inuu gato $14 barkiis waxaana la qiimo tahay markii bicihi caadi loo isticmaali jiray taasi waa mid oo dadka supermarketyada mid dalba su'aasha waad igu celi sababta adoo bac soo iibsan kara hadda sharciyan wax kugu kalifayo ma inaad paper bag sida wadamada qaar anaga sharci qoran oo dhahaya waa la xarimay ma jirto Muqdisho bacaha way socdaan waxa maanta aad u dooran weyday bac oo qiimo jaban aad ku keeni kari weey oo u buufin kari weey oo u dooratay paper bag ma profit faa'iido labada waa ku faa'iido badan tahay miya option kale xitaa jira waxa jira kuwa maro oo kala waa aragtaan Soomaa hadda laftarkooda dadka qaar ah keenay marka kuwa sababta u dooran weydeen oo kartoonka u dooratay ilaa hadda ma fahmin fahmay horta saddex shay oo ugu muhiimsan markii saas la yiraahdo kow mid waxaan ka fiiriyo environmentalka labana economical mid saddexaadna waa job creationka hada job creation ka bilaabo anu suuq cusub aan bilaabo important bama anu producer ama ana baalaad soo saara dhalinyaro u firfircoon oo markaas firashana waa shaqo gelinaya oo shaqalaan ay wadankooda mid saddexaad waxa waaye taxi oo laba nin indirect iyo direct taxi wadanka ku soo siyaadeen mid saddexaad waxa waaye lowiski iyo qaanuunkii iyo deegaankii oo mintaqana green managementiga ay ilaalinayaan midda haddana dhaqaalahaan haddaan u fiiriyo easily way ka lacag yarta markii loo fiiriyo oo macnaha markii economiga loo kaco markii loo kaco xagga environmentalkana waa eco friendly diba loo process garay kara deegaanka hanfil kuma markay baakis yihiin intaan qooyaaba la odayda siisa karaan ama xooleyga siisa kara marka taas saddexdaas shay aan soo koobilayna su'aashan weydiin abunay aad oo marsantii ina wanaagsantii oo aragnaa waxaan rabaa environmental waxa la jiray friendship kan ina ilaalinaysan laakiin su'aasha ustaadkan si kale u dhigaya iyadii ku celin rabaa hayad moolan tagay bacda lacag laana lagu siinaa lagama gado adoo bacda in laga gado marta bis lacag laana iyadoo lagu siinaa dukaanka ka gaday anagu lacag laana ku helaa hatta bacda hayad waxa lagu siiyaa free sama ama santa hal tusaale rabaa inaan ku soo qaato marka ugu horeysa bacaha maanta magaalada lagu iibiyo halkii bukusa waxa lagu soo qaadaa $24 aniga bukuska aan soo saarayo waxaan qiyaas estimate gareynaa sanadkii aan soo saaray 200 oo kartoon halkii kartoon waxa ku jira 12 bukus 12 kaas bukus kartoonka ay ku jiraan waxa ka kooban yahay 100 paper bag inay ku jiraan maadaama marka aad tiri supermarketyadii bacaha wal lacag la'aan ay ugu siinayaan aniga hal bukus oo 100 xabo ka kooban waxaan ka siinayaa $14.5 sida bacdo kale ay siinayaan sida bacdo kale lagu siinayaan number 2 su'aashayda labaad 33,770 budget idin qoran lacagtaas laba qayb laga keenaa dadeen qaybna adinkoo idinka imaanaysa qaybna deyna ku soo helayna deyna aan ku keenayna su'aasha labada dhinac waa la socotaa teamkiina lacagtiina meel ay idin taallaa waad aruursateen way idin diyaarsan deynkana bankiga idin soo ballan qaaday meel ay idin taallaa labada sasa u fahmay hadday ka duwanta ay sheegay استاذ ما سنتهي مدة يعني ذاتك أو نرسك فكرة دان كان صدق وضد أرضيه هو اسكت أيوه برنامج كان مرهروب وكل الشباب كتير ومن أي ماله تهلا مدة بنجي أخو سهرت وعلي ردي تلابه هذا القاعدة كرت ماشي القاعدة كرت الله قاعدة أنا قمت أروح نقول شرتي مال أن لا أن هدان وينه إن دين هان أورادين ما دام تانس كان أصاب بحي وحنا نقطة تانس كيف أي سكر ساسا مرتين عن وصلت ترتمي أنا رح ما أقول فايز maamul malaha kala dambeyn ma jirto maxaa u kala qori weyseen hayrankiina
lacagta way siman tahay madaxi way siman yihiin fariidan way wada siman yihiin maasha allah ardayda markay waa ay kala level waa sax maadaama ay kala level yihiin qof kasta haddii la yidhi adiga intaasaa lagaa rabaa ma aan keligiis inuu bixinayo magaca guud unbuu ku qoran yahay laakiin nin baa roon oo nin kala dabarayo waa yani waa iskaalmaynaya ma ahan hal qof kaliya inuu intaas uu qasab ku bixiyo waa high quality document ku qoran oo aragtaa oo specialized manpower oo export inaan soo qaadana xirfadna u leh kadibna markii aniga hawsha i baraan dad Soomaaliya uga faa'iideynaya oo producerkii samayn kara halkaasna advantage kale ku jirta waa isku jiraan qaar business ah jira qaar economic ah jira qaar bankina jira waa different paper bag waxa ka sameynaysan paper rolls laga sameynaya dhahdeen oo imported ah ايش اسمه correction loo baahan na everything locally wax la sameynayo ma alaab imported ku jirta alaabtaas imported ka xagee laga keenaya saddex shay horta loo baahan yahay facility oo flexible lagu gaari karo ko skill and manpower loo machiinki saddex roll materialki sometimes meesha ku qoran tahay Istanbul laga keenaa oo ku qoran tahay documentigan يعني شركة أن كلها شيء نقيمة هذا واحد عن كذا ولو كوست يكون إمانة alternative أو كوب بديل كرتان مجرى material هناك كينا واحد وده اللي جه الكترات كوب بديل كرتان مجرى future كهذا مركي ده ضد كحساس ساران وحليرة مركز كبعده وحلا بدل لكن بربونتي كان ألقى سمر كانوي كفايديسو qiimo dhimis gaaraysa 70 boqolkiiba oo $3 oo kaliya ku hel Mastercard markan waxaan u yeerayaa tiimka ugu dambeeya ee soo jeedinta ku qoran waa tiimka wato magaca Aaron Farm oo ka socda jaamacadda ummadda soo dhawaada waayahay soo dhawow inta waqtiga ku bilaaban marka hore bal dadka isbar si kooban بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaan ahay Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf arday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed saarkan ka qalin jabinaya waxaan ka shaqeeyaa oo aan bartaa culumta beeraha ee deegaanka waayo dambeeyay ku jira haye barnaamijkan xageed ka aragtay markii ugu horeysay maxaa xiisaha ku lahaa intaad maanta ka soo qayb galay maanta nasiib u yeelatay ka qayb gasho bal markaagii hore dareenkaaga runtii aad ugu faraxsanahay barnaamijkan aslan aniga waxaan ka arkay haddana qaldan 2019 telefishinka TV-gan ka arkay mawduucan maanta wuxuu daaran yahay ama project-gan waxa la yiraahdaa Aaron Agri Farm waxaan rabnaa oo ay tahay inaan soo saarno business-kan wuxuu daaran yahay anaga xoolo dhaqashada sida ogtiin Soomaalidu inta badan waa xoolo raacato laakiin ma xoolo dhaqato marka anaga waxaan rabnaa maadaama aan beeraha baranay inaan noqono xoolo dhaqato mashruucana xoolahan dhaqan doonaan marka waxay noqon doonaan idaha iyo ariga intaba mashruucana sida caadiga ah wuxuu daaran yahay laba waji labada waji waxay yihiin maadaama aan rabno inaan maxaan ku xoolo dhaqano marka koobaad waxaan ku fikiraynaa ayaa waxay tahay inaan beerno caws beeraley aan nahay oo culumta beeraha maxaan ku naqaanaa waxaan rabnaa marka inaan soo saarno caws aad iyo aad u tayo badan carbohydrateska iyo maxaan ku yiraahdaa proteinka uu leeyahay aad u badan yihiin kadib ayaan waxaan rabnaa inaan siino maxaan ku yiraahdaa xoolaha aan rabnaa inaan ku bilowno oo markii aan garaaska ama cawska soo saarno kadib waxaan rabnaa inaan beerno xoolo soo iibino xoolahaasna siino markii aan diyaarino kadib 100 neef rabnaa inaan ku bilaabano ujeedkeennuna wuxuu yahay inaan soo iibsano xoolaha dagan ee caatada ah ee ku dhiban dadka ay ku dhiban dadka haysta مثلا حوالها محن كورة لبعتن إلى صديشن أنت وده سنوقف ديسن كرا كديمنا أنا جو أنسين عاش كانوا جو تلاقلني أنا جو أهلي نبيه حوالها أنت بدن وحنا وأنسارين حوج وحين نقدون حوالها دايلا لأن كواسا الجعل هي هدين نقدان إذا هدين نقدان أربعة فكرة أنا جو وحين نقول على تي أفجوي ملك تدا وحن كسو يبستي تضبط النف وحن كسو بحشي لبعتن إلى $1 بر أيام مع ترانسبورتيش كودو فديس عاوز بيري عاوز كان بيرني وحال لقى أركي كره هالكان وعاوز كان أكون حجرة أنا جا أو بيري أو بيرتي إذا مالك ميدا كوب بيرني مركب من بيرني أيه وحن سين حوالي ديب عاوز كان أنا جا وحن أوجش مالير أو تجابة كبر مركز كنت تجابين إن كوب بيرني لو بقول $1 أنا جش لو بقول $1 مركز أنا جشي على نف وحنوق فديس كم تاني $1 كنتني $2 neef ku nagu fadhiyay ayana waxaan ka bixinay $80 which means meeshaas waxa ka soo baxday faa'iido aad u badan 7 neef ayaa waxa ka faa'iidina 100 iyo maxaan ku yiraahdaa iyo $60 lacag ku dhow marka fikradda halkaas nooga dhalatay waxaan ogaanay in xoolo badan oo maxaan ku yiraahdaa wadanka maanta jooga ay degan yihiin
ayna tahay maadaama culimta beeraha aan soo baranay in looga faa'iideeyo oo maxaan ku yidhaha cawskaas lasoo saaro dadkuna ay ka faa'iidaystaan anaga ujeedkeenna wuxuu yahay ma waxa aan shaqadan u qabanayno inaan soo saarno xoolo cayilan tayo leh caafimaad qaba biyahoodii wax kasta heli kara meesha aan anagu ka qabanayno ama aan ku beerayno waxaa waaye Dayniile iyo Afgoy meesha iska galaan waxaan umaleynaa qolada hadaaya idinka kuma kala duwan isku dhow qoladaas iska dhaaf kuma kala duwan أنا مشروعي وحاول سوقه كوين وعليله لكن مشروع بير عاوز كان قرف البلد أنا قلي يوم لينا هنا أصلا ما يروح على هذا ملاتة عاوز كان أنت سامي ووضع كفاية سكت وقبل الله بالله ترى وما أبارح بتران ما أهم سمها وحويه إن ليلة دي قلت لي إن بعد قودين إنسان حاول مثلا almost 7 سلايد iyo wax ka badan ku yaal waxay head space fiican 3 daqiiqo been aan ku qaadano anaga sida hadda meesha ku qoran waxa aan soo saareyno waa cawska aan soo saareyno 45 cisho ayaan waxaan filaynaa 80 tan iyo 220 inta ka dhaxaysa marka uu yaraato 80 tan marka uu batana 20 tan sida international kale yaqaan marka cawska anaga aan soo saareyno iyo xoolaha aan haysano ku bilaabayno 100 neef waxa badan production keena cawskiya badan cawska laba qaab uga faa'iideysan karna anaga hadii uu noo soo baxo xoolaheena markaan haysano waay waxaan uga faa'iideysan karnaa number 1 100 neefan ku tashanayna in 100 neefada ziyaadino oo maxaan ku yiraahdaa ka dhigano kono kale aan gaarsiino maadaama production keena cawska uu badan yahay waxaan kale uga faa'iideysan karnaa maanta Soomaaliya waxa milyaneer ka noqon kara qofka caws haysta cawskaas aniga waan haysto inaan diyaariyo oo aan hay ahaan u soo diyaariyo kadibna suuqyada magaalada aan keeno maxaan ku yiraahdaa hadii hay'adii wax u baahan la arka la dhoofiyo hadda Puntland waxay ka keentaa Dubai iyo Oman waxana dadkaas ma beertaan marka waa si iibsan karaa suuqina waa keensan karaa xoolaheeyina 100 neef waay waxaan hadda ku tashanaya waa ka sii ziyaadin karaa 1 neef aan ka dhigi karaa aniga bisa marka isku ekay kara marka laba option aan furan laakiin adiga targetkiina waxa weeye xoolo targetka beer maaha beertu waxa weeye ma la yatimu alwaajibu illa bihi fa huwa waajib nasu kala waa ilaahay wuxuu leeyahay mataa'a lakum wa li'an'amikum ayaga inta wax soo saarno waa labadii waa isku wada jiraan inaan wax soo saarno waxaan soo saarnaa xoolo cunan oo ujeedkeena arrintan Soomaaliya ugu bi ku tahay in xoolo la dhaqdo gaar ahaan dhaylada ama ariga idaha Soomaaliya ugu bi ku tahay gaaraan Muqdisho anaga marka waxaan dooranay xoolaha sida caadiga daraasada sameeyay waxa dilay waxa weeye xoolaha dadka inta badan suuqa maanta keena waxay ka keenaan gobolada dhexe iyo maxaan ku yiraahdaa Jubbooyinka iyo Bay iyo dhulkaas ka keenaan waxa xoolaha dilay marka waa infrastructure marka mesela markii xoolo laga keeno Bay Bokol wadooyin badan ay soo marayaan muddo safar ka soo jiraan waa soo neefkii tacbaan imaanay anigu waxaan doortay in dhul ayaan haystaa oo la isiiyay 4 hektar ah ceelna waa ku dhex yaalaa magaaladii toonka kama dheera wuxuu ku yaalaa waa meesha isgalka carramadooda iyo maxaan ku yiraahdaa iyo carra gaduud ah oo Afgoy Dayniile maxaan ku aad ugu dhowda waxaan ku doortay dhowr shay tolka miya no number 1 waxa ah aniga neefkayga markaan maanta soo waday suuqa keeno haddii qiimi aan ku ribo midaan ahayn aan ku helo waxa waaye waa meeshin ku celinaya waa number 1 qofka Bay Bokol ka keeno wuxuu ku qasbaya neefkaas inuu meesha ka wado lacag raqiis ama ku gado laana haddii meesha si joog kira ku socto xoolihii maxaan ku yiraahdaa wuxuu cun u baahan yahay number 2 waxay tahay xoolaha waxa dilay waa infrastructure wadada ay soo marayaan neefka haddii la soo lugiyay 100 kilometer asoo caato dhintay ku imaana laakiin Dayniile ka soo waday 2 saac soo waday 4 saac keenaysa أنا سوق حوله وين أكويا؟ No. ليش أدورتي؟ دكتة حوله. مايا. وحكينا جدا. ما أنت حمر الجوجا. دكتة ماشي أنا قلت الله هدي أنا دكتة وحرنا أيوه. مايا مكوض. سوق هدي أنا بعضنا سوق وحكي لي كلام. مايا حوله هيلدك والله. أبغى يبقى سوق قدرتها. No. أنا وحان تارجت جرينا حوالي رقيسة. هذا أنا أبغى ينكسو يبسد. لكن وحقيقة فرن إن باقي بكون أنت كسرنا. أنا أقول أنا كانوا ماشي حردي أنا كيسده حرداس أنا كينا كمان دقائق أنا ماشي ربما هذا يعني حرداس وحردا والجو هنا يا أنتدد والجو سينا يا محن كير هذا دودد والجو سينا يا فرتلزر كان والجو سينا. Thank you. لو سؤال لك على maxaa qataro kugu iman kara oo aad diraasayay inta aad baaraysay number 2 markaad dhaqaaleyso oo aad kobciso oo cayiliso intee market ku ogeerata
target market-kaada yaa waay mise waa ninkii lacag alaab haysta waa suuq ma weynaayo miyaa mise target market-ku hadda aad ku tashanaysaa jiro. Number 2 maxaa khatar ah oo ka imaan kara adigoo background-kaaga oo professional u ah barnaamijka maxaa khatar oo ka imaan kara? Okay, aniga targetkayga number 1 waa suuqa xoolaha lagu iibiyo. waxaan rabaa suuqa xoolaha lagu iibiyo dadka xoolaha keena inaan noqdo ka ugu fiican ee keena neef tayo leh. maxaan ku yiraahdaa hoteeladii iyo maqaayadihii maalin kasta wuxuu u baahan yahay xoolo dhayla in la keeno. maxaan ku yiraahdaa si dadka u iibsadaan. targetkaygu wuxuu yahay inaan ka faa'iideysto maalinta Carafa ama Ciidul Adha. Ciidul Adha inaan ka faa'iideysan rabaa oo Ciidul Adha aan soo saaro xoolo aad iyo aad u badan 100 neef oo inta uu sheegayna ka badan. waxaan jeclaan lahaa mar risk investigation kana tagto. Number 1 risk investigation ka waxyaaba ah waa in xoolaha meel dheer aad ka soo wadayso. aniga khatarteeda yareeyo daynile iyo afgooy meesha iska galaan. aniga beer ayaan haystaa hadda. beerteyda markaa tilaab qaado waa carramadu markaa tilaab kala qaadana waa carragaduud. marka infrastructure number 1 waa ku dadaala. qodobka koobaad oo labaad wuxuu yahay haddii xooluhu ay helaan maxaan ku yiraahdaa caws ayagoo caws ka heesaad xoola keento adoo caws ka heesa marka kooda macnaha waxaan beerayaa caws anoo caws ka heesa waxaan keenayaa xoole cawska inaan soo saaran aqoonteedii aan leeyahay arday dhalinyaro ah oo commitment leh oo very energetic ah baratayna culumta beeraha. Abdurrahman ma santahay waa kalsoonidaas loo baahan yahay. Thank you. We'll take you to the next level inshallah. Thank you. And the profit margin ka waa $80 ku gata. 80 ilaa 100 inta ka dhaxaysa Liibiya. Kostiga uu ugu imaanayo ilaa 3 bilood inaad soo iibiso oo hayso oo furiso waa ilaa 50 iyo 52 kii hore ka tusaale qaat anoo 7 neef soo iibsaday between 25 to 35%. weliba waxaan rajeynayaa inuu ka raqiisanaado sababtoo ah area yar ayaan cawshir ku beer markaas. hadda marka 100 aad ku bilaabaysaa soo ku bilowday already waa ku bilaabi doonaa. marka waxaa diyaar hadda qaybtii beerta cawskiin la diyaariyo. beerta waa haystaa ceelku waa qodan yahay intaasna garantiya waxaa liisiina ku beeran karo in isticmaali karo. natiijkeedana waa marka beertaas ilaa intee la scale garan karaa yani kama hadlayo wax lagu beeray laakiin 100 aad ku bilaabayso kasoo ilaa intuu accommodate garan karaa ilaa 1000 neef ee lagu hayn karo. waxaa lagu hayn karaa horta meesha lagu hayn karo cabirka la dhisay ku xirnaan doontaa. laakiin anaga waxaan beerayno waxay tahay cawskaan beerayno mulaata tuya la yiraahdaa waa ka ugu fiican ee dunida Afrika hadda laga beerto. 45 casho kasto waa beerayaa 9 casho kadib ayaan guranayaa 60 sentimitir markuu soo gaaro 45 casho kadib waxaan soo saaranayaa 45 casho kasto waxaan soo saari karaa 80 ilaa 200 oo tan. which means aniga labada bilood oo neefkan ila joogo waxaan u baahnaan doonaa kaliya 22,000 oo tan. 100 neef markaan ka xisaabiyo 22,500 oo tan kaliya u baahnaa. marka wax soo saarkayga ayaa wuxuu ka baday intaan haysto. cawskaasna waxaan uga faa'iideysan karaa inaan sii iibiyo. haddaan sii iibina cost kale ayaa meeshaas faa'iido ka imaan doonta. dhinaca costiska waxaan u fahmay ceelaad meesha ku haysataa soo biyaha kharash ka baxay maaha laakiin biyahaas uma baahna in lagu soo saaro generator sidaas uma baxay. intiba hadda waa diyaarsan yihiin laakiin khalad yar jiro. waraqada ay haysataan waxaa ka maqan transportation oo shidaalka oo ku jiro waxay ayagoo update ah waxay ku jiraan halkan. transportation-ka 630 waxaan kala jeedaa waxaan ugu baxaysa bishii waxaan ugu 3 fust. korontada maaragtay irrigation system-ka koronto isticmaalaysa mise waa solar? irrigation system-ka koronto bam isticmaalaya. bamka marka koronto ama solar? sprinkler irrigation way ceelku ku xiran yahay. marka waxa energy uma baahna koronto uma baahna wuxuu u baahan yahay shidaal oo ceelka shidaal ku jiro. marka shidaalkaasna costiska kama muuqdo. waa kana transportation shidaal meeshaan ku jira. marka tii transportation iyo waxa isku dar shidaalkii oo dhan isku qabtay. laakiin lagu cadeeyay meesha waa fiicnaan lahayd waa mahadsantahay. intaa ayuu nooga ogyahay xalqadii 6aad oo ay ku tartamayeen qaab wanaag Beber oo ka socday jaamacadda SIU iyo sidoo kale Aran Farm oo isna ka socday jaamacadda Ummadda. xalqadii 6aad ee barnaamijkeena qaybtiisa koowaad intaa ayay nooga egtahay daawadayaal. anigoo Jacfar idin la socodsiinayay barnaamijku waa tartanka halabuurka ganacsiga. Premier Bank ayaa maalgelinaya. intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo.